مقدشو ومورا يدان كتوت موقني أقال مدحدنا مقدشو بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan halkaan iskugu imaanay inaan ka shaqeyno bilicda magaalada ubaxa caasimada oo ah urur dhalinyaro waxay mar walba u istaageen soo celinta bilicda magaalada maanta waxay noo soo abaabuleen inaan lambar 4 iskugu nimaano isla markaana wadada nadiifino oo quruxdeedana ka shaqeyno kadibna aan soo celino bilicdii indhaha magaalada u rooneed ee cadaan iyo madow iyo mataqaana iyo sidii wadada ay u noqon lahayd wax qurux badan waxay dhiirigeliyaan maalin walba in wadooyin cusub la furo la dhiso si dhalinyaradana ay awoodooda ayagana ugu qurxiyaan oo u hagaajiyaan majirata milicsiga quruxdeeda milicsiga quruxdeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومد الصوماليات ميل walba ay dunida ka joogan magacaygu waa maxamed xuseen xasan gudoomiyaha dhalinyarada ubaxa caasimada waxaan maanta joognaa isgoyska number 4 kilometer 4 waxa gadaasheeda ka muuqda waa taaladii Said Ahmed waxaan ka shaqeynaynaa waa shaqadii aad nooga barateen ee bilicda soo celinta magaalada Muqdisho shaqadeenu maanta way ka gedisan tahay shaqooyinkii hore waxa farxad weyn inoo ah in ay nagala soo qayb galeen shaqadan galabtay dhacaysa dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland dowladda goboleedka Puntland ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay mishe maxaano waanu xisay بسم الله الرحمن الرحيم وما تنتي مركز وادي مهدعلنا دمانتينا runtii waa dareen gooni ugu abuuraysa aan dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii isxilqaamay oo Soomaaliya meel kasta ka imaaday oo qayb weyn ka ciyaaraya door weyn qaadana gaar ahaan dhalinyarada waan awoodnaa ee hadda noo yimid oo walaalaheena ah iyo sidoo kale dhalinyarada hormuudka marka dhamaantood oo qof walba hadda ka qayb qaadanayso wax weyn waaye oo wax badan loo tiraayay qaybaha kala duwan saaxiibadan waxa caasimada ku jira aan u mahadcelinaa dhamaantood marka hore marka labaad wax weyn oo qiiro leh waaye oo qof walba inuu qayb ka qaato ay tahay aan dhalinyarada markay u istaagaan inay wax ay isu qabtaan oo ay aaminsan inay awoodaan kulligood wax badan baa ka soo baxaya waa qayb ka mid ah barnaamij qurux badan oo aynu ka diyaarinay howlaha nadaafadeed ee ka socda halkan barnaamijkan oo dhammaystiran waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena muuqaalka bulshada oo todobaad kasta aad ka daawataan muuqbaahiyaha caalamiga ah ee Muqdisho Cable TV MC TV